بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada muuqaal cusub. muuqaalkeena maanta waxaan uga hadli doonaa cudurka loo yaqaano Peptic ulcer disease, annaga oo si faahfaahsan u qaada dhigi doono cudurka iyo waxa uu yahay iyo sida ay boog calooleedku ku samaysanto iyo waxyaalaha sababa iyo calaamadaha la isku arko iyo sida ugu habboon oo qofku u raadsan karo la tacaalid caafimaad iyo haddii uusan raadsanin caqabadaha ka iman karo. Peptic ulcer disease waa mid ka mid ah cudurrada ugu badan ee bulshada Soomaaliyeed la dhiban yihiin. Calaamadaha Soomaalida u taqaano gaaska, laabjeexa, gastriga iyo magacyo kaleeto oo fara badan waxa ay ka turjumayaan waxa cilmiga caafimaadku u yaqaan dyspepsia. Dyspepsia waa erey si guud loo yaqaano calaamadaha ka soo muuqda qaybta sare ee dheefshiidka, kaasi oo ay wadaagaan cudurro fara badan oo Peptic ulcer disease ku kamid yahay. Peptic ulcer disease waa cudur ay boogi ku samaysanto qaybta sare ee dheefshiidka, khaasatan caloosha iyo xiidmaha qaybtooda sare. Marka ay boogtu ku samaysanto caloosha waxaa loo yaqaanaa gastric ulcer, marka ay ku samaysanto qaybta sare ee xiidmaha ama mindhicradana waxaa loo yaqaanaa duodenal ulcer. Haddaba sidee ku samaysantaa boog calooleedku? Marka qofku uu caafimaad qabo, caloosha iyo xiidmaha ama mindhicrada qaybtooda sare waxaa dahaara xuub loo yaqaana mucosa. Qaybta sare ee xuubkaasina waa sida xabka oo waa wax jiidmaya. xuubkaasi dahaara caloosha iyo xiidmaha qaybtooda sare iyo isku dhis loo yaqaano bicarbonate ayaa waxa ay ka difaacaan caloosha iyo xiidmaha acid loo yaqaano hydrochloric acid oo ay soo dayso caloosha, kaasi oo shaqadiisu tahay dheefshiiditaanka iyo burburinta cuntada aan cunno. Haddii xuubka caloosha iyo xiidmaha dahaara uu dilaac ku yimaado amaba xaddiga acidka caloosha sii daynaysa hydrochloric acidka uu siyaado, waxaa ka dhalan kara in ay samaysanto boog calooleed. Maxaa sababa in boog calooleedku samaysmo? Sida aan kor kusoo sheegnay, markii qofka uu caafimaad qabo waxaa jiro xuubka la yiraahdo mucosa ee dahaara caloosha iyo xiidmaha ama mindhicrada qaybtooda sare iyo isku dhis loo yaqaano bicarbonate oo ka hortaga in ay caloosha dhibaato soo gaarto. Wax kasta oo keeni kara xuubkaas inuu dhaawac soo gaaro ama siyaadin kara xaddiga acidka ee caloosha ay soo saarto waxa ay keeni karaan in uu yimaado boog calooleed. Waxyaalaha keeni kara marka in xuubkaasi uu dhaawac gaaro waxaa ka mid ah bakteeriyada loo yaqaano Helicobacter pylori amaba H pylori. Bakteeriyada loo yaqaano Helicobacter pylori si ay ugu taranta caloosheena gudaheeda waxay u baahan tahay inay la timaado qaabab ay uga badbaadi karto acidka ay caloosha soo dayso oo haddii uu gaaro dhibaato u geysan kara. Si taas ay uga badbaado waxay soo daysaa walaxyo isku dhisyo ah oo iyadu ay ka dhiganayso gabaad ay isaga difaacdo hydrochloric acidka, balse dhinaca kaleeto waxyaalahaas ay soo daynayso bakteeriyada Helicobacter pylori ama H pyloriga waxa uu dhaawac u geysanayaa xuubka mucosaha ee dahaara caloosha iyo xiidmaha qaybtooda sare. Taasina waxa ay keenaysaa marka acidka la soo daayo inuu si toos ugu dhaco calooshii iyo xiidmihii oo aysan jirin wax ka celinayo maadaama xuubkii ka celin lahaa uu meesha ka baxay. Taasina waxa ay keenaysaa inuu samaysmo boog calooleed, qofkuna uu dareemo calaamadaha boog calooleedka. Sababta labaad ee keenta in uu samaysmo boog calooleedku waa qaadashada joogtada ah ee xanuun baabi'iyeyaasha. Daawooyinka loo yaqaano NSAIDska amaba non-steroidal anti-inflammatory drugs oo ah daawooyin xanuun baabi'iyeyaal ah oo ay ka mid yihiin daawooyinka aspirinka, diclofenka iyo kuwa kale fara badan oo loo qaato xanuun baabi'iye ahaanta waxa ay dhaawacaan xuubka caloosha dahaara waxayna keenaan haddii uu jirana ay sii siyaadiyaan boog calooleedka. Arrintaani waxa ay si gooni ah u taabanaysaa dadka da'da ah ee la nool ama qaba cudurrada ku dhaca kala goosyada ee loo yaqaano arthritis-ka iyo haweenka ku xanuunsada caadada oo si joogto ah u isticmaala xanuun baabi'iyeyaal. Sababta saddexaad waa habnololeedka qofka. Waa arrin weyn oo taabanaya cuntada, jiifka, jimicsiga iyo haddii qofku uu leeyahay balwad. Si gooni ahna sigaarka iyo kafeega waxaa lagu tiriyaa kuwa sahla in boog calooleedku uu samaysmo oo loo cilmi baarisyo ku filan aan loo hayn in sigaarku keeno boog calooleed, haddana waxaa la rumaysan yahay in uu caawiyo samaysanka boog calooleedka. Sidoo kaleeto waxyaalaha taabanaya habnololeedka waxaa ka mid ah qalqal ku yimaado cuntada, khaasatan xilliyada cuntada, in qofku uu marna cuntada xilli hore cuno marna daahiyo marna uu ka tago. Taasi waxa ay keenaysaa in qalqal ku yimaado hanaanka sii deynta dheecaanka acidka, taasna ay dhaawac u geysato xuubka dahaara caloosha iyo xiidmaha qaybta sare. waxyaalaha kale ee muhiimka ah habnololeedka qofka taabanaya isla mar ahaantaana qayb ka qaadan karo in ay boog calooleed samaysanto waxaa ka mid ah walwalka joogtada ah iyo cayilka oo saameyn xoog leh ku leh isla mar ahaantaana sahli kara in boog calooleed uu si sahlan ku yimaado haddii uu jirana uu sii darsado. Haddaba waa maxay calaamadaha lagu garan karo qofku inuu qabo boog calooleed? Calaamada koowaad, boog
xanuun ama waxa afka cilmiga lagu yiraahdo epigastric pain, waana calaamada ugu badan ee qofku uu dareemo markii uu qabo boog calooleed. Calaamada labaad, laab jeex ama laab dilaac oo loo yaqaan heartburn, oo ah in qofku uu dareemo in wax kulul ay kusoo gadoomayaan. Calaamada saddexaad, feere xanuun ama chest discomfort, mararka qaarkood qofku waxa uu dareemi karaa in ay feeraha xanuunayaan. Calaamada afaraad, dibiryo iyo caloosha ay ku furanto hawo ama aryo. Calaamada shanaad, cuntada dufan kale oo qofka dhibta. Calaamada lixaad, saxarada oo dhiig soo raaca ama waxa la yiraahdo malaena, ama qofka oo dhiig ma tago oo loo yaqaan hematemesis. Iyo calaamada ugu dambaysa oo ah calaamada toddobaad, qofka oo isku arka calaamadaha dhiiggarida sida daal badan iyo neeftuur. Haddii aad isku aragto calaamadahan soo socdo, waa inaad si dhaqso ah ula xiriirtaa dhakhtar una booqataa goob caafimaad, waayo calaamadahan soo socda ee aan sheegi doono waa kuwa degdeg ah. Calaamada koowaad waa in dhiig ka yimaado gadaal oo saxarada soo raaca dhiig gaduudan oo fresh ah, amaba aad dhiig ma tagto. Calaamada labaad waa inaad isku aragto calaamadaha dhiiggarida sida daal iyo neeftuur fara badan. Calaamada saddexaad, miisaankaaga oo si degdeg ah u dhaca. Calaamada afaraad, matag joogto ah markasta oo aad cuntada cunto oo aad matag ka soo daynayso. Calaamada shanaadna waa cuntada oo ku dhibta laqitaankeeda ama xanuun aad ku dareentid. Haddii aad isku aragtid si guud calaamadaha ama aad isaga shakisid in aad qabtid cudurkan boog calooleedka, markii aad booqato goob caafimaad waxaa lagu diri doonaa baaritaano, iyadoo marka ugu horeysa laga bilaabi doono bakteeriyada Helicobacter pylori ama H pylori si meesha looga saaro inaad qabtid. Haddii aad qabtid, waxaa la bilaabi doonaa daaweynteeda. Haddii aadan qabin, waxaa laga fikiri doonaa waxyaalaha kale ee keeni kara peptic ulcer disease ama boog calooleedka. Si loo baaro bakteeriyada Helicobacter pylori waxaa la adeegsadaa qaabab fara badan, laakiin qaababka commonka ah waxaa kamid ah in la adeegsado in saxarada qofka laga baaro antigenada bakteeriyada, ama in la adeegsado endoscopiga iyada oo cad laga soo qaadayo nabarka ku sameysmay caloosha, kadibna la baarayo in bakteeriyada ay ku jirto. Qaabab kale fara badanna waa jiraan oo loo baaro. Markii la baaro kadib, waxaa bilaabanaya haddii laga helay bakteeriyada keenta boog calooleedka daaweynteeda. Laba nooc oo daawo ugu caansan daaweynteeda, mid waxaa loo yaqaanaa triple treatment, midna waxaa loo yaqaanaa quadruple treatment. Sida ay u kala horeeyaan iyo midda ay tahay in lagu qorana waa shaqo u gooni ah xirfadlaha caafimaad ee markaas arrinkaaga gacanta ku hayo. Haddaba haddii qofku uu qabo boog calooleed isla mar ahaantaana iska daaweyn waayo, maxaa dhici kara? Waxaa imaan kara waxa loo yaqaan complications ama caqabado waaweyn oo halis gelin kara nolosha qofka. Caqabadahaas waxaa kamid ah bukaanada khaasatan kuwa qaba Helicobacter pylori ama H pylori in ay bakteeriyadaasi keento waxa loo yaqaan atrophic gastritis, taasi oo isu bedeli karta kansarka ku dhaco caloosha ama dheefshiidka. Sidoo kale waxaa imaan kara dhiig bax xoogan oo keeni kara qofka naftiisa inay halis gasho. Dhiig baxaasi oo u baahnaan doono haddii daawo lagu xalin waayo in qalliin qofka la geliyo si dhiiggaasi loo joojiyo. waxaa kaleeto imaan karo dilaac ku yimaada darbiga caloosha, taasi oo loo yaqaan perforation, waana arin halis ah oo qalliin degdeg u baahan. waxaa kaleeto imaan karo waxa loo yaqaano in caloosha qaybteeda hoose ay xiranto, taasna waxa ay keenaysaa in aysan cuntada u gudbin mindhicirada ama xiidmaha yaryar, waana waxa loo yaqaan gastric outlet obstruction. iyada lafteedana haddii daaweyn lagu xalin kari waayo waxaa lagu qasbanaan doonaa in qalliin la sameeyo. haddaba qofka si uu uga hortago in waxaas ku yimaadaan waa inuu xilli horeeto dhakhtar booqdo haddii uu isku arka calaamadahan. sidoo kaleeto dadka isticmaalo daawooyinka xanuun baabi'iyaasha ahna waa in ay daawooyinka isticmaalayaan la tashi kala sameeyaan dhaqaatiir, waa haddii ay si joogta u isticmaalayaan. intaas ayaa muuqaalkeena kusoo koobayna. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.